ninkani waxa uu soo saaray qoriga AK-47ka 50 milyan oo qof ayaa lagu toogtay qorigiisa. hal abuurkiisa ayaa sanad walba sababa laba jibaar in ka badan dhimashada ay keenaan madaafiicda iyo gantaaladu. dhawaqa qorigiisa ayaa dhagaha ka riday askarigan, waxa uu dhintay isagoo walaac ka qaba dadka lagu dilo qorigiisa. dowladda Ruushka ayaa maamustay ninkan, waxaana loo dhisay taalooyin. maxay ahayd sababtii uu Osama bin Laden u jeclaaday qorigan? qisada halyeeyga reer Raashiya ayaan warbixintan ku dul istaagi doonaa. fadlan like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan, siina faafi muuqaalkan mahadsanid. Mikhail Kalashnikov, dad badani ma garan karaan magaciisa, waxaa si caan baxay qoriga uu ikhtiraacay ee Avtomat Kalashnikova oo loo yaqaan AK-47. sanadkii 1919 waxa uu ku dhashay buuraleyda fog ee Etlia ee ku taal koonfurta Siberia ee dhulweynaha Ruushka. waa mid ka mid ah 17 carruur ah oo ay dhaleen qoys sabool ahaa. sanadkii 1938 ayuu ka mid noqday ciidamada Red Army-ga ama ciidamadii guduudnaa ee Midowgii Sofiyeetka. waxaa loo tababaray makaanig cilad bixiya taangiyada ciidamada militariga ee Midowgii Sofiyeetka intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. waxa uu dhaawacmay muddadii lagu guda jiray duulaankii Jarmalka ee USSR 1941. qorigan ayuu ikhtiraacay markii ciidamada Ruushku ay u babacdhigi waayeen qoryihii casriga ahaa ee xilliga ay isticmaalayeen ciidamadii Jarmalku. 1949 ayuu qorigani waxa uu noqday mid rasmi ah oo ay wax ku weeraraan ciidamadii Midowga Sofiyeetku, kaasi oo si ba'an loogu gumaaday cadowgooda. waxaana markii dambe isticmaalay dowladihii la isku oran jiray gaashaanbuurta Warsaw. qoriga AK-47 si dhaqso ah ayuu ugu faafay adduunka oo dhan, isagoo astaan u noqday kacdoonnadii ka dhacay dalalka aadka u fog sida Vietnam, Afghanistan, Colombia iyo Mozambique oo calankooda si weyn uga dhex muuqdo. Mikhail Kalashnikov waxa uu ahaa nin aad ugu raaxaysta maqalka rasaasta AK-ha oo dhawaqeeda uu ka yaqaanay qoryaha kale, isagoo maqalkiisii ku biiray dhawaqa qorigan dartiis kadib tijaabooyin isxigxigay oo uu ku hormarinayay. waxa uu diiday inuu qaato mas'uuliyadda dadka lagu dilo qorigan, isagoo ku eedeeyay siyaasad xumada dowladaha caalamka. waa ay dhibtaa markaan arko maafiya iyo dambiilayaal isticmaalaya qorigii aan u sameeyay in lagu difaaco nabadda. waa hubka ay ugu jecel yihiin isticmaalkiisa argagixisada, jabhadaha hubeysan, qulqulatooyinka. waxaana horey loo arkay isagoo uu ku hubeysan yahay hogaamiyihii xagjirka ahaa ee Al-Qaacida, Osama bin Laden. waxaana la aaminsan yahay in mucaaradka hubeysan ay qorigan u doorteen dhagafudeedkiisa, culayskiisa oo aan badnayn, iyo rasaastiisa oo si darandooriga u dhacda, si yarna looga heli karo suuqyada hubka ee caalamka. 106 dowladood ayaa si rasmi ah ciidamadooda ugu dagaalamaan qorigan, waxaana jira 31 dal oo Ruushku uu hormuud u yahay oo warshadahoodu ay soo saaraan qoriga AK-47ka. ugu yaraan 108 milyan oo qof ayaa qarnigii 20aad lagu dilay hubka darandooriga u dhaca, waxaana in ku dhow kala bar tiradaasi lagu toogtay qoriga AK-47ka. qorigan adeegsigiisa waxa aad u jecel askarta xirfadleyda ah iyo argagixisada oo ah kuwa ugu daran ee sida ba'an wax ugu gumaaday. malaayiin qof ayaa sanad walba u geeriyoota rasaasta ka dhacda qorigan. dhimashada uu sababo waxay laba jibaar ka badan tahay geerida ay keenaan madaafiicda iyo gantaalada oo ah kuwa ugu awoodda badan hubka maalin walba caalamka laga rido. Kalashnikov waxa uu warqad dheer oo qiiro leh u qoray kaniisadda ka hor intuusan dhiman, isagoo walaac ka muujiyay inuu leeyahay mas'uuliyadda qof walba oo qorigaasi lagu dilay. waxa uuna yiri, haddii qorigaygii uu sababay dhimashada dad badan, soo aniga ma lihi mas'uuliyaddeeda. mar nin wariye ah uu 2007 weydiiyay sida uu seexan karo habeenkii, waxa uu ku jawaabay, si fiican ayaan u seexdaa. siyaasiyiinta ayaa eedaha iska leh, waxay ku guuldareysteen inay heshiis la gaaraan dhinacyada ka soo horjeeda iyagoo rabshado abuuraya. Kalashnikov kama helin lacag badan ama wax u dhigma qiimaha qorigiisa. waxa uu se ka dhaxlay sharaf iyo ixtiraam ay u muujiyeen dadka Ruushku, iyadoo lagu maamusay taalooyin xusuus reeba. shaqadiisa darteed, Midowgii Sofiyeetka wuxuu Kalashnikov siiyay abaalmarinta Stalin, midda The Hero Socialist Hyper iyo Order of Lenin. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu si gaar ah u tilmaamay in qoriga Kalashnikov uu astaan u yahay hal abuurnimada iyo maskaxda dadka reer Raashiya. Mikhail Kalashnikov 23 Diseembar 2013 ayuu geeriyooday isagoo 94 jir ah, waxaana dalkiisa loogu sameeyay baroordiiq iyo aas qaran.